الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله salaada ciida أكبر ayaa maanta ولله lagu dukaday masaajida kala duwan ee magaalada Baydhabo iyo goobo bannaan oo ku yaala magaalada si weyn ayaa looga ciiday maanta magaalada Baydhabo waxaana isugu soo baxay wadooyinka magaalada kumanaan ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada dadka magaalada ee ciidaya ayaa ku labisnaa dhar aad u qurxoon waxaana wajiyadooda laga dheehan karay farxad bismillaahi magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Macalin oo loo yaqaan Piranjelo maanta waa maalinta ugu horeysay ciidul fidriga waxaan ku ciidaynaa magaalada Baydhabo gaar ahaan beerta Baydhabo beertana oo ah beerta ugu horeysay ama aan dhihi karo beeraha ugu weyn oo ugu macquulsan bariyaha laga asaasay magaalada Baydhabo taasoo maanta ani caruurtay u soo wada ciidnay waan ku faraxsanahay ummadda islaamka meel ay joogan waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr xaaji mooyin sheekh macuun oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed wuxuu u diray hambalyo ku aadan munaasabada ciida ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ayaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta dunida daafeeda meel kas ay kala joogaan waxaan leeyahay ciidan ciideeda ilaahay nabad nagu wada gaarsiiyo acmaasha oo la soo sameeyay oo bisha Ramadaan ilaahay hanaga wada aqbalo waxaan leeyahay ummadda muslimiinta oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala martan caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo Allah wada siiyo annagana martan oo meel kasta oo aan kala joogno sidoo kale caafimaad taame Allahna wada siiyo tan kale cudurka caafaha badan dunida oo martan caafeeyay ilaahay oo martan ummadda ha ka wada qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan baryaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo isna la hadlay shacabka koonfur galbeed ayaa ugu baaqay munaasabada ciida darteed inay iscafiyaan shacabka isna caawiyaan waxaan rabaa inaan inta hambalyada ciida aan inta uga diro dadka muslimiinta ah iyo dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ilaahay ciidan ciideeda nabad ha nagu gaarsiiyo cibaadadii iyo soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii iyo isu asxaanfalkii tirada badnaa oo la suubiyeyna ilaahay ha naga aqbalo ilaahayna ha nagu dhowro hambalyo ciid wanaagsan farxad iyo nabad iyo sharaf iyo caafimaad ku ciida adinkoo faraxsan iscafis ku ciida dadka walaalaha ah meel kasta ay joogaan iskaalmeeya isu asxaanfala gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed dibad iyo gudaba waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikhayr taqabbal allahu minna wa minkum ilaahay cibaadadii iyo soonkii iyo salaadii iyo taajudkii iyo taraawiixdii iyo ducadii iyo sadaqadii intaba ha naga aqbalo hana nagu badbaadiyo sidoo kale degmooyinka maanta sida weyn looga ciiday waxaa ka mid ah Baraawe oo ah caasimada koonfur galbeed Soomaaliya Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool iyo degmada Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo Janay